kulanti wacan wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee naga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed daawadayaasha aanu jecelnahayo waxaan idinkaga soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan xaflad baroordiiq ah oo loo sameeyay Cabdulqaadir Gabayre Faarax isla markaasna ka dhacday magaalada Den Haag ee wadanka Netherlands ayadoo xafladaasi ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin iyo waxgarad si aad u yaqaanay Cabdulqaadir Gabayre Faarax oo 22 bishii September ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayadoo qaraxaasina ay kula dhinteen Cabdulqaadir Qaasim Shirwac oo isna ah si weyn loogu yaqaan wadanka Holland iyo nin darawal ah iyo sidoo kale waxa la dhintay nin Falastiini ah oo Cabdulqaadir saaxiib ahaayeen waxa barnaamijkan ka dhacay magaalada Hague isugu yimid akhyaar aad u fara badan iyo dad si weyn u yaqaanay Cabdulqaadir Gabayre Faarax isla markaasna ka sheekeeyay taariikhdiisa sidoo kale barnaamijkan inta uu socdo waxaanu ku soo bandhigi doonaa film yar oo documentary ah oo markaasi ka sameynay Cabdulqaadir Faarax Gabayre waxqabadkiisii Cabdulqaadir Faarax Gabayre waxa uu ahaa aasaasihii hay'adda la yiraahdo Foundation for Somalia wax badan u qabatay ummadda Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ahaa nin hami weyn ku lahaa siyaasadda wadanka Soomaaliya waxaana wax badan markaasi ka waday gudaha dalka Soomaaliya isagoona dad fara badan oo dhalinyaro ah gacan qabtay barnaamijka ayaan daawadayaal jeclahay in aan idinku duuna hadda maadaama dad fara badan ay ka hadleen barnaamijka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إن تاريخ دولة كان كهذا لكن قاسم الشروع oo degnaan jiray wadankan Holland si fiican baa soo dhaqaanaan akhyaar oo ahaan jiray oo muddo degan oo lagu dhaartay axsaabtii ahayn waxa la milaabana mar aniga Cabdimaalik Suura aniga 2006 oo ilaa Somaliland Hargeysa ilaa iyo Burco ilaa iyo Boorama aan tagnay oo la socday 3 isbuuc asbarnay ahayd ugu fiicneed aan la maray muddo la yar aan ka ximay oo Soomaaliya aan geeyo Soomaaliland aan geeyo waa taariikh la milaabana Cabdimaalik iskii dambeeyay maalin ugu dambeysay Muqdisho ku tagay dirasa ka sii heli doono kuma sii dheeraanay ninka dhahay Cabdulqaadir Gabayre muddo boolan kuna hadda waxa telefoon ii soo diriyay qaraabanahay oo ii sheegay walaalkeena 92 markii asoo China ka yimid ayaa boolan lagu qabtay lagu xiriiriyay markaas uu yiri ninka Cabdulqaadir Gabayre gurigiisa joogay asaaca markaas uu qabtay soo day 6 bilood buu gurigiisa ku hayay asoo lacag ka qaadanay ogeyn qabiil Soomaaliyeed ku hayay kaliya isku qabiil kama ahayn isku meel kama ahayn marka waxa Soomaaliyeed waxa ka maqan dadkaas oo kale ahaayeen oo Soomaaliyeed u istaagan oo u hiiloonay marka ma dheeraanay dad badan baa meesha jooga iga raali hada assalaamu alaykum warahmatullahi السلام عليكم runtii aad bay u fiican tahay oo ay muhiim u tahay haddii qof bulshada ka dhex muuqday ay ku timaado geeri degdeg ah sida hadda tan dhacday oo kale inaan isxasuusino oo aan isla fadhiisano oo aan isxasuusino qofkaasi muhiimadda oo ummadda u lahaa arrintaasi runtii waa mid lagu farxo dadkii arrintaas soo qaban qaabiyey maanta dhalinyarada iyo dadkii gogosha noo fidiyeen runtii way ku mahadsan yihiin aniga shire sidaas isuma noqon oo ismaan arag nasiib xumo laakiin Gabayre waxaan is aragnay hal maalin oo runtii oo aan ku bartay magaalada Rotterdam تذكر waxaa si fiican ii sii baraneen isaga ay isla shaqeynayeen oo la yiraahdo Cabdirashiid oo runtii ii sheegay inuu ahaa ninkaasi nin ambition weyn leh oo rabay inuu Soomaaliya wax badan ka qabto waxaan ogaa inuu arrimaha construction iyo dhismaha uu ku mashquulsanaa runtii aad baan uga naxay geeridiisii markaan maqlay oo degdeg nagu noqotay qof walba uu dhimanayaa maalin buu qof walba dhiman doonaa qofka waqtiyada colaadda jirto in time for warka qofka dhinta ee Soomaaliga ah ku dhinta isagoo dan muhiim ah wada lagu dilo ama ku geeriyoodo runtii mararka qaar waxay ka fiican tahay ninka gurigiisa iska jeefa ee Rotterdam ama Den Haag iska jeefa iska dhinta waxaa dhaama qofkii isagoo shaqo muhiim ah qabanayay oo geeriyooday runtii waan ku faraxsanahay inaan isku nimid oo isxasuusino waad ku mahadsantihiin labadaas eray siisaan nimanka walaalahan aan Ilaahay u naxariisto Allahi wa barakaatu waxaan horta ugu mahadcelinayaa dhammaan baroordiiqa ka soo qayb galay iyo dadka abaabulay horta waan ugu mahadcelinayaa tan labaadii aad bay aan ugu naxay naxdinta
geerida lama filaankaa ku timid walaalaheena. Cabdiqaadir haddaa fiirisid waxaan isnaqaanay muddo laga soo bilaabo 2014 sanadkii hore ayaan isbaranay. waxaanan isku baranay Google ah inuu raadinahay dad aqoon-yahano Soomaaliya oo kala qayb gala mustaqbalka Soomaaliya si wadada saxa loogu hagaajin lahaa. waxaan xasuustaa inaan iskugu nimid building aan gurigaan deganahay guri ka koreeyo aan isla joognay ilaa week oo intaasna aan isla qorsheynaynay wareede waxaan ka bedeli karnaa arrinta Soomaaliya xagee baan u sii jeedin karnaa waqtiga dhibaatada Soomaalida taagan tahay. waxaa nin mar kastaba daacadda Soomaaliya aan qabiilna u fiirin aanan ummadda qofka sokayana u fiirin. waxaa nin maalin walba u taagan u yiraahdo hey xagee isbedel ka raadinaa. qof kasta oo lagu yiraahdo wada qofkaas baa maanta wuxuu haystaa fikrad ummadda Soomaaliya wax lagu qabanayo ayuu albaabka u garaaci jiray. waxaan xasuustaa annagoo habeen casheynayno annagoo barnaamijkii wadnay qaybtiisa dambe qodnay ilaa 6 saac habeenimo ay cashada noo timid. cashada marka noo timid waxaan islahaan waa daali doonaa biriso waxaan wadi doonaa barnaamijkii ilaan isku building aan isla degnay gurigeen oo magaalada Alfana Dareena. markaas waxaan la siiri marka la casheeyay wuxuu yiraahdaa Cabdiqaadir saxan maayo waxaan rabaa barnaamijkii inaan sii wado iyo diyaar u ah yiri 2 qof ilaa 3 qof. hadda fiirisid waxay ii keentay inaan aniga aan ka qaato fikrad baahida loo qabo hoggaan cusub Soomaaliya inuu ku yimaado. walaalayaal waxaan shaki ku jirin xalin ay istmaanka horena waa daawateen. maanta waxaan u baahanahay SYL-kii cusub inuu yimaado. waddankan in loo hiloodaa loo baahan yahay. hiil buu nagaga baahan yahay. hiishan waxay ku imaan kartaa dhalinyarada maanta. horta marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii labada nin oo qaaliga ay ka geeriyoodeen. waxaan isku baranay waddankan Holland 2014 isagoo baadigoobaya jiil ama rag xaaladda dalka uu ku sugan tahay raggii ka samata bixi lahaa isagoo albaab walbo loo tilmaamayaba u gargaraacaya qof walba noqoto. waxaa kamid ah xitaa raggii dalmar iyo gruubkii markaas garbihiisa ahaayo markaas wadayay kamid ahaayeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا waxaan sugu nimid goob tacsi ah la rabo in la xuso shakhsi weyn oo dhamaanteen inaga wada dhintay qaali noogu ah. horta waxaan ku leeyahay marka hore waan tacsi u dirayaa eelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteen ka geeriyoodeen marxuumiinta la soo sheegay Cabdiqaadir Gabayre Faarax iyo walaalka kale ee Holland deganaa iyo dabcan nin kale oo muslim ah oo Falastiin ah oo Cabdiqaadir ku heliyay safarkiisa oo Imaadudiin in la dhaafo filaayo magaciisa Poland isla deganaayeen. waxaan leeyahay sidii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiidku sheegay inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta وبكل معناها إلهي بقى قاتي أو متقنا شرعي تنسيي مركون الشيء عبقادر ما أنت ليس كوتي شقق سيدي علي وش هذا علي يحيى وكله شقق شرف بدن أما دمشو أما قبل ودنتو إن حالات ده وكجر عبقادر حالات ده وكدنتي حالات كون أكسن ما أنت عينتو جوجنا أملين ما ينجستو طبعا وحو كون أكسين هاي قفكي كدنتي سريرتي ساسوس كجو هلك يعني كجر متقنا وجدوين بدن دلكيسين جوجن وحاول وكان شرف بدين أنا وحن جوجي مركو عبقادر ريد حمر مقدش تحملنا هذا موجة هاي. أركو رئيسا دهورتو حن سوقنا من حيلة يعني تعسية ولا راح يعني كوجي ريد مقالة مقدشو خاصة نقول عبقادر وأنا نجا أصحابي هن سكو مقالة هن ريبروين أصله هن سكو حافظنا عنه هن وضن كمان في المعنى هنا بدك بسود وين كمدها سكوني يجوا الرهان يأغون يدا سكو ونواهن إلهينا قلنا حديث أسيجي أهل الديسي عروتي سوكتجي ينتي ولا لبا شروع نغسيده وكلا إلهي قبل يسوع الله ودي ولا الكي وحسبوا إنه هو تعسية أهل الديسي عروتي سناسجن مرة بعد إمرك ودو تعسيرنا. أنا عبد القادر الجبيرة فارح وعنس برنا اللي بدو يكون يو طبنكي وطن كمركز سوق عصبة هذه السنة كأخيرا جوي مجال الردام يعني صبرنا كبعدنا مركز برنا وعوشة جنوب بلون بندقنا كبعد لبدا كون يلا بيجي طبنكي markii ugu horeysay ayuu igu yeeray magaalada Warsaw ee wadanka Poland
xilligaas uu ila soo xiriiray oo uu yidhi waqtigii abaaraha daran soomaaliya ka jireen ay ahayd oo macluush ka jirtay wuxuu qabanqaabiyey inuu baarlamaanka waddanka Poland oo inta tago ay ka hadlaan baarlamaanka markuu arrintaas u ka dhameeyana anigu u yar waagaas waxaan ka shaqeynay TV Somali Channel inaan meesha ribood uga soo sameeyo waan u tegay baarlamaanka waddanka Poland ayuuna dhex geeyey kaarar oo noo qaaday wuxuu markii dambe ay shir jiraad wada qabteen ninka guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka oo xildhibaanna ah arrin Poland ay magacaabay arrimaha bini'aadanimada ee waddanka Geeska Afrika waqtigaas aniga Poland ugu horeysay asna aan bartay muddo 2 habeen ayaan gurigiisa uu ka degan yahay aan soo jiiftay oo aan maaragtay wada sheekaysanay wixii intaas ka dambeeyana xiriir fiican ayaan wada lahayn horena uu dhowr jeer kusoo laabtay haddaan ka sheekeeyo dhinaca horta markuu ugu horreysay wuxuu kusoo bilaabay isaga shaqada dhinaca bini'aadanimada urur la dhahayo Foundation for Somalia oo waliba ururkaas uu ku guuleystay in waddanka Poland uu noqdo ururka ugu weyn ee dadka soo galootiga ah ama dadka ajnabiga ah ee jooga waliba dadka Afrika ka yimaada iyo Carabaha wuxuu sidoo kale arrimo bini'aadanimo ka soo qabtay Somaliland ayuu ka soo shaqeeyay markuu ugu horreysay shaqadiisa ka bilaabay kabacdi wuxuu ku xijiyay gobolada dhexe wuxuu tagay gobolada dhexe ayuu caafimaad dad dhaqaatiir u geeyay barnaamijyo sameeyay wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay waqooyi bari ee Kenya Garissa run ahaantii wuxuu ahaa nin dad badan mar aan la sheekaystay wuxuu taariikh badan ahaa wuxuu iga sheekeeyay inuu waddanka Poland oo ambassador ahaa iskiisa isaga isku xilqaamay oo waliba ilaa 91 ilaa dadku markay ka soo gali jireen Ruushka wuxuu ahaa ninka dadka mar walba sidoo uu sheegay yariis oo kale dadka maarta gurigiisa ku soo dhaweey jireen waday arrimo badan oo dhinaca dhismaha ah oo waliba hada shirkad weyn iyo dawladda Soomaaliya ay heshiis wada saxiixdeen oo rabeen inay barnaamijyo dhan oo dib u dhis waddanka ka sameeyaan arrintaas ayuu la laabanayay laakiin ilaahay dartiis ilaahay afsaday marka Cabdulqaadir Gabayr wuxuu ahaa nin aad iyo aad fikir fiican magaalada uu tago waxa kale ku jecel meesha uu markaas tago wuxuu ahaa nin dadka dhan isku keensan kara oo wada kara oo qof asoo u kala fiirin qabiil asoo u kala fiirin ninkana xiga asoo u fiirin ninkana kullu dadku isku mid ahaayeen marka run ahaantii aadan wanaxa geeridiisa aniga waxaan rabnay haddana Center for Media and Dialogue waxaan isla qabanay ururkiisa barnaamij workshop ah oo la bari soconaya oo soo dhamaaday oo aan ku qabanay magaalada Warsaw 25 bishan soo dhaafay marka 40 wariye ayaa rabay isku keenay meeshaas tigidhadii ugu jaray waa barnaamijku la habeeyay subaxii أو دمنا مقرب دمنا سوي سوعي تلفون وسوعي ترينا صار الردم السعودي وعقود هاي برامج وسود بي صدق لبعتك أيام فصل الله أنا ويري مقالة وارسو حاولنا نقدر يري برامج كساو حلي رهانتنا هل ساعة هميني مثلا مقرب كعمل أنا أركي أنا مقالة جديد سو قرح داعي مركب قرح داعي واجوي بالك وقد كان كجرا لكن ما أبين إنه ما سوق الحصول انتهينا إنا لله وإنا إليه راجعون قلبت waxaan iskuunay meeshan taasi barordiiq ah oo aad iyo aad u xanuun badan oo dhamaanteen wada taabatay labada nin oo meeshaas ku dhimatay Allah u naxariistay anigu waxaan aqaanay Gabayre ninka kalena kulay waa maqlay laakiin aqoon ma aanan lahayn Gabayre intaan ka aqaano waxaan bartay Gabayre mar waaniga laakiin waqtiga dhow aan bartay ayaa u filan iyo intaan ka arkay Gabayre wuxuu ahaa nin oo aan la yaabay markaan arkayba aad iyo aad aan la yaabay isqiibal baan ka soo qaaday Allah u naxariistay asoo waddanka oo maanaha ka yimid oo safar ah markaa wuxuu yiri shaqo ayuu yimid oo la lahaa Center for Media and Dialogue markii uu yimid waxaas lagu nasanayaa isla markiiba wuxuu yiri noo bilaaba shaqadii aan yimid ma seexanayo ma nasanayo aad baan u yaabay waqti dambe ahayd oo kowdii habeenimo ah markaa waxay Gabayro waa safar dheer baa ku timid waa adaalintaas ka soo xumay waan shaqeynayna marka waxa ku dheeraan mahayo waa nin aan la yaabo ahaa muftiisa oo loo soo diray ummadda Soomaaliyeed waxa ka hadlayna wax wada Soomaaliya ku sayaayeen ma ahayn wax oo shakhsiyaad kaliya ku kooban waxa ugu dambeysay bixitaankiisii 30 bisha bishii 21 uu dhintay 30 bishii ka horeysay ay ugu dambeysay isqiibal baan ka saaray boorka asoo boor u socdo oo safar ah
taariikhdiisa wax badan ayuu aan ka garanaya laakiin ma rabo inaan ku dheeraado maadaama dad badan ay soo hayaan gabayro waxaan ku waday program waxaan wada wadnay sida bilawa uu sheegay 25 bishii 21 uu dhintay 25 ayaa ballan waxaan ku lahayn Poland aan tagno ma noqonin meeshii bilaa si fiican uga hadlay way noqon weyday inaan meeshii ninka tacsiid u taalay inaan tagno aan workshop iyo wax la mid ah aan kasoo jeedino waxaan leenahay Allah u naxariisto بدل غير قوانة أصحابتي يؤهلدي يفميلدو كدنتنا وحلنا بدل غير الله سيو السلام عليكم ورحمة الله. ujeedinaya dadkii soo qaban qaabiyey roordiiqdan runtii aad bay u qiimo badan tahay in qof oo mataqaanaa bulshadeena qiimo weyn ku lahaa markii uu inaga tago oo saasoo kale inooga geeriyoodo in la xuso wax loo baahan yahay sidaasaana mataqaanaa oo dadkii qofkii qiimaha inoo lahaa aynu ku xusuusan karnaa oo taariikhku ku yeelan karaa marka dhaqan fiican weeye haddii wixii ka dambeeyay dad sidii awalba jirtay oo aan usoo samayn jirnay in loo wado aad bay u fiican tahay waxaan marka labaad taasi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada barxum gabayre anigu 2012 ayaan shirka wada qayb galay aan muddo wada joognay waxaa nin aada u qiimo badan nin Soomaali ah Soomaalinimadii aada u sarreyso runtii aragti dheer aada iyo aada aan anigu uga helay qaab dadnimadiisa marka dadkaasoo kaleeto maanta aada baan ugu baahannahay qof dadnimadiisa iyo Soomaalinimadiisu ay fiican tahay waqtigii aan ugu baahi badnay weeye runtii annaga dhan mataqaanaa dhaawac ay geeridaas noo keenaysaa shirwax sidoo kale inaan aada isu naqaanay ku ahaa saaxiib ahayn aada iyo aada u fiicnaa oo dadka aada usoo dhaweyn jiray Holland ayuu nagaga guuray waqti hore muddo laga joogo marka labada qof oo maanta aan u fadhino tacsidooda laba qof oo aada u qiimo badan bay ahaayeen runtii waxaan ilaahay uga baryayaa in naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo tajribo mahadsan tahay dadka sharafta leh dhammaantiin waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta geeridu waa xaq qof walbana maalintiisa ma dhaafayo marka wax walba ilaahay keenana waa in lagu shukriyo alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin qofka haddii uu dhinto waxaa muhiima in loo duceeyo sida ay culimmadu noo sheegeenoo in dembigiisa ilaahay u dhaafo naxariistii jannana ilaahay ka waraabiyo kitaabkiisana midgta ilaahay ka siiya qabrigiisana waasix uga dhigo intaa kadib anaa ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda ibsan waxaan halkan jecelahay inaan tacsi uga diro marka koowaad qoyskii ay ka geeriyoodeen labadaas marxuum oo qiimaha lahaa waxaa kaloo tacsi u diraynaa eheladoodii waxaa kaloo tacsi u diraynaa asxaabtoodii ugu dambeyntiina waxaan tacsi u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waayo dadkaasi waxay ka geeriyoodeen ummadda Soomaalida maadaama ay ahaayeen dad runtii mujtamaca Soomaalida qiimo ugu fadhiyay Cabdiqaadir Gabayre runtii anagu ismaanan aqoonin laakiin muddo dhow oo laga joogo 3 usbuuc ka hor ayaan isbaranay magaalada Rotterdam halkaasoo kasoo qayb galay kulan ay abaabuleen Central Media and Dialogue marka runtii muddo yar ayaan sheekaysanay waxaa iskeen baray nin la yidhaha engineer Kimiko arrintaasi runtii markiiba waxaan ka dareemay inuu ahaa Cabdiqaadir Allah u naxariisto nin runtii Soomaalinimadu ay aad iyo aad ugu weyn tahay jecelna wax badan inuu u qabto dalka iyo dadka Soomaalida ah runtii taasna waa midii hadda uu ku guda jiray markii geeridu ay ku timid marka in runtii la xuso aad iyo aad ayay muhiim u tahay dadka mujtamaca qiimaha ku leh sidoo kale shirwac waa nin muddo dheer aan isnaqaanay wuxuu ahaan jiray reer Holland runtii waxaan aad ugu xusiistaa inuu ahaa nin afgaaban runtii edeb leh yani markaad fiiriso dadka diinta islaamku ay sheegto ah in edeb iyo runtii maarta asluub wanaagsan oo ammaan laga helo aad u afgaaban dabeecadiisuna aad iyo aad u wanaagsan tahay markii ugu dambeysay waxaan ku kulanaan u malaynaa halkan danxaaq wuxuu la joogay dalmar marka asagana kulley waxaan leenahay allahu naxariistii janna allah ka waraabiyo salaatu wasalaamu calaa rasuulillah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kulley Cabdiqaadir iyo shirwac buu allah naxariisto
dad walaala oo qiimo leh ay ahaayeen taariikhdoodii waa laga sheekeeyey caawa dadkoo dhan oo ka dharagsan yihiin waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsi ha geeyo kitaabkoodiisa laha ka siiyo anagana gadaashooda ilaahay nama fidneeyo qaraabadii iyo ehladii ay ka tagana sabay baa ka siiyo ummadda soomaaliyeedna isbana laha ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون waxaa aad iyo aad uga xumahay dhimashadii ku timid walaalkeen qaaliga gabeere ilaahay qabrigiisa waasaxa uga dhigay dhammaan asxaabtii kaloo la shaqeynaysa oo kula geeriyootay meesha muddada gaabanaa isnaqiino waxaan ka bartay waxay ahayd gabeere allah u naxariistee maalinaa sheekaysanayna wuxuu yidhi ka warnaan ku iri safarka soomaaliya markaasuu wuxuu ugu yidhi xuseen waa soo ciishooday wax kalena kama ciishoonin oo yidhi waddankeena siduu noogu baahan yahay ayaan soo ogaaday oo yidhi marka wuxuu ugu dhahay saaxib adiga iyo anigii inta nala mid ah waajibaana sugaayo aniga waa bilaabay oo yidhi idinkana waxaa idinka filaa in ay ugu soo daba xigtiin maalintuu dhimanayna allah u naxariistee saacadaan ismoogeen anigii nin saaxiibkay cabdirashiid la yidhaahdo cabdirashiid iyo dhammaan iyo maxamed cilmiye dhalinyaro badan oo muqdisho joogtane tacsida waxay dhaheen ana laga gaarsiiyo waa idinla qaybsan lahayn laakiin waqtiga ayaan noo saamaxaynin marka allah u naxariisto dhammaan qabrigoodana waasac allah uga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu إنا لله وإنا إليه راجعون سيدا dadkii hore bay sheegeen waxaan la qabaa inay ahayd geeri naxdin leh anigu labada ninba laba nin oo aan aada isugu dhaweyn oo saaxiib aan ahayn bay ahaayeen waqti badanna aan isnaqaanin runtii haddaan ku hormara gabeer waxaan isku baranay waddanka Sweden ayaan isugu nimid I think inay ahayd yirisus 2008kii inay 2008kii ayaan isugu nimid meesha la yiraahdo Sweden ismana aqoon runtii dad baan isu kaay keenay shir baan isugu nimid halkii waan isku baranay si gooni buu noogu yimid oo organization-kani waan ka tirsanahay Dalmar oo markaasuu runtii rabay arrimo fara badan oo uu doonayay inuu xalliyo inaan ka kaalmeyno Soomaali islamarkaana aqoonin laakiin run ahaantii wixii uu damacsanaa iyo niyaddii wanaagsaneed ayaa waxay naga dhigtay dad walaalo ah in badan baan ku booqanay Poland asagana in badan baan halkan ku casuunay oo noogu yimid wadamo fara badan oo kale oo ay kamid yihiin Norway iyo Sweden waan isu raacnay oo barnaamijyo noocaas ah ayaanu ka wada shaqeynaynay wixii ka dambeeyna runtii arrimaha Soomaaliya aniga laftigeega aad ugu mashquulsanaa ayaanu aad uga wada hadli jirnay sidoo Muuse sheegay xitaa waxaan ku casuumay anigu xisbigii qaran la yiraahdo ka tirsanahay shirkeennii halkan aan ku qabanaynay ayaan ku casuumay oo nagala soo qayb galay in badanna waxaan ka wada sheekeysanaynay bal dalkii Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa laakiin xuskiliya micno ma sameeyo walaalayaal hamiga Cabdulqaadir waxa kamid ahaa wadankii Soomaaliya oo qiimo ku soo noqday sharaftiisii iyo karaamadiisii oo ku soo noqday ayaa kamid ah dadka runtii aad niyadooda ugu jirtay inay Soomaaliya ku soo noqoto Soomaalidii la yaqaanay marka annagu inaanu qof dhintay xusnaa waxa ka qiimo badan waxa uu jeclaa inaan wax ka qabano dal baan sugayo halkan oo xigtii aan ku nahay meelaha aan fadhinay yaanan macaansanin dalka iyaga runtii wuxuu noo baahan yahay inaan shaqo adag ku qabano inan baa oranayay hadda waxaan u maleynayaa magaaladii hal la tago Muqdisho Cabdulqaadir asagoo magaalada Muqdisho ka shaqeynaya oo iyo qarax ku dhintay dad badan oo ka horreeyna qarax bay ku dhinteen dad badan oo ay ku dhiman doonaan laakiin waa inaan la baqin haddaanan de qaraxaas loo dul qaadan oo aan laga shaqeynin dalkii ma noqon doono waddankaas aanu loo leenahay annagaa lahaan doono dhashayada ugu dambeysa aan dhali doono iyo ubadkoodii iyo waxay sii dhali doonaan dhaxal wanaagsan waan ugu tagno laakiin waxaa nasiixo ah anigu rafaadka aan soo maray oo kale iminka aan qaxootiye iyo dhibaato soo maray haddaan wiilkayga iyo ubadkiisuna ay soo maraan oo noocaas wadamo fara badan ay u gumaysanayaan sida iyagana loo gumaysan aan u ogolaado runtii waa wax aan qiimo lahayn marka aanu ku dadaalno inaanu goboleedkan xun iyo qabyaaladan yar intaan iska dayno inaan waddankeena dib u soo ceshino walaalayaal aad baad u mahadsantihiin
sharaf leh wanaag leh fikradda ah in kulankan la abaabulo qofkii keenay qofkii wax ka qayb galay qofkii wax ku daray qof alla qofkii ka soo qayb galay qofkii gartay inuu xitaa taageero uu farxaddaas ila qaybsado horta aad buu u mahadsan yahay sharaf la weyntii ninka muwaadinka ah oo walaalkeena cabdiqaadir gabayre faarax oo degan muddo 30 sano ku dhawaada waddanka la yidhaahdo Poland ayaa wuxuu sanadka 2014 ku guuleystay bila sharaf qaali ah taasoo uu ku mudaysay asaga iyo hay'adda asagoo madax ka yidhaahdo Somali Foundation shaqada uu wado waxaa ka faa'iidaysanaya ummado kale ayaa ka faa'iidaysanaya markastaba waxaa qiiminta leh oo aad loo qiimeeyaa qofka nafcigiisu gudbayo oo cidda kale wuxuu qabanayo tiisiina isagoo markuu meel ka ogaayo haddana ummadda wuxuu qabanaya marka waa tii ku imaanaysa khayru nnaasi anfacuhum linnaasi model fiican inuu noqdo oo dad badan ay raacaan ama ay ku darsadaan waa wax loo baahan welina dad noocaas oo kale Soomaaliya ku jiraan markaa quusataba raggu baa soo bixi sida la xusaayo walaalkeena bila dul soo qaata annagu dhanbe waxay noo tahay miisaal aan ku dayan karno dhalinyarada soo koraysa iyo ragga dhalinyaradada waxaan u malaynayaa inay ku dayan doonaan geesiga fariidka ah ee wanaagsan ee qiimaha badan ee sharafta badan leh ee magacii Soomaaliyeed iyo calankii Soomaaliyeed u soo hooyay guusha sharafta leh meel kastana laga daawanayo Soomaaliya oo dhan buu soo qaaday aad baad u mahadsantihiin aad baad u sharaf badan tahay ilaahay ha kula garab qabto ilaahay ha kugu sii guulaysiiyo kii Soomaali wanaag iyo sharaf u horseedana Allah ka dhigo ilaahay baan kuugu ducaynayaa waa mahadsan laakiin intuu nool yahay ayaa waxa loo baahan yahay in lagu daysado oo maaragtay asagana la sheego waxa runtii gabayre waa dadaalay waa arkayay wadda sida qaatay iyo inuu Soomaali ku hadlo sidoo dad ajnabi ka joogo aad iyo aad u sharaf badan waxaan ruuxaantii shucuurteeda si aad u weyn u kiciyey ruuxaantii mudane cabdulqaadir gabayre ruuxaantii waa arrin sharaf Soomaaliyeed sharaf qarameed oo maanta tusaale ku dayasho mudan ah walaalkeen cabdulqaadir hawsha uu sameeyey qofka bini'aadamka markuu wax qabto oo laga abaanaayo intaas waxay siisaysaa energy iyo quwad ayay siisay marka muxuu ahaay intaas waa ilaaha kula garab qabo ilaalahaysay waxaan aha kalana aad aan uga helay baryahan telefishinada waxaa ka socday Soomaalida in af Soomaaliga la adkeeyo macnaa af Soomaaliga macnaa waxaa la yidhi muxuu ahaayey markii madaxweynaha lagu soo celceliyey xafiiska macnaa xafiisada ha looga shaqeeyo meelahaan oo kale gaar ahaan marka la iskugu yimaado way fiican tahay runtii in aan af Soomaaligayna muujino taas horta cabdiqaadir credit ayaan kugu siiyey waana hambal iyo dad badan ugu horreeyna waa macnaa way sheegeen waxaa jirta dadkeena Soomaalidu waqti baan haynaa dad aan ku jirana saacada haystaan farqiga marka wuxuu noqonayaa nin baad weydiinaysaa waxdee maxaad maanta qabanaysaa wallahi nin waan iska nasanay kule waqti baan haystaayo xoogaa baan seexanay wasta kulya inna saacad buu haystaa wuxuu leeyahay 5 daqiiqo dhiman 1 daqiiqo dhiman 30 sekund baa dhiman macnaa waqti uu erayaa iyo waxqabadka marka farqiga noo dhexeeya waa kaas inta ummadda aan ka dambaynana waa inta aanu waqtiga hayno haddii aanu saacad xiranno dadka waan ka degdegaynaa waxaana leeyahay soo dhawo walaalkeena cabdiqaadir gabayre duniyadan qurxooniyo dowladaha hore u maray ogow waa dad inala mida intay isku duumeen dantooda ogaadeen waxyaabaha kale oo cabdiqaadir lagu xasuusto waxaa ka mid ah sida quruxda badan oo dalkeenu hooyo oo u geliyay jawigiisa arrimaha bulshada oo ceelashii iskuuladii isbitaaladii oo waxyaabo aan la soo koobi karin oo nooga sameeyey cabdiqaadir gabayre aad iyo aad ayaan kuugu hambalyaynaynaa Abdulkadir Gabayre Farah. Panowie, co dzieje się teraz na Półwyspie Somalijskim? Co jest przyczyną tych potwornych problemów tamtejszych mieszkańców? Somalia ogólnie miała ostatnie 20 lat problem wewnętrzny. Teraz dotarła susza, która
soo isku tiirsada hadbakiina taagdarane taageera weligiine tan waa abaalmarin ay ila qaybsanayaan soomaalidoo dhan meel ay joogaan waana tusaale in qof kasta oo doonaya inuu meel gaaro inuu gaari karo maadsantahay intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka gaarka ahaa ee markaasi aan ugu hadlaynay taariikhdii cabdulqaadir gabayre faarax iyo weliba qaasim shirwac oo ka dhacay magaalada Den Haag ee wadanka Holland. barnaamijkan waxaa si wada jira usoo qaban qaabiyey hay-adda Center for Media and Dialogue iyo weliba hay-adda Dalmar ee fadhigeedu yahay magaalada Hague iyo weliba TV-ga qaranka Soomaaliyeed. intaanu barnaamij mid kale lamid aan ugu kulmayno daawadayaashaanu jecelnahayo waa Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro oo idinkala soo hadlayo magaalada Hague wadanka Netherlands.